halkaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya banaanbixi kismaayo ayaa daawanayseen ee looga falcelinayey qaraxii wuxuushnimo ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. halkan dad badan ayaa soo gaaraya maanta oo dhan oo diyaar u ah in dadka walaalahooda ay murugada iyo tiiraanyada ay la qaybsadaan. dadkaasi oo isugu jira dad madax ah iyo sidoo kale dad shacab ah oo mutadawiciin ah oo diyaar u ah xoog iyo maalba in ay kaga qayb qaataan waxaa halkan ka soconaya ee xarunta gurmadka qaranka ee degdega ah. waxaa haatan ila taagan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan tuur yare oo sidoo kale xilal kale horey usoo qabtay, waxaanuu ka mid yahay dadka ay dhibaatadu taabatay ee halkan soo gaaray. taliye horeyna mas-uuliyad xagga amniga la xidhiidha waa soo qabatay, muxuu yahay marka hore dareenkaaga iyo waxa halkan aad u timi? bismi illaahi raxmaan raxiim. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin biajalin. run ahaantii dareenkayga markaad i weydiiso wax la cabiri kara maaha. waxa dhacay waa musiibo qaran. ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay, waa shuhado waaye. man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid. waxay gelayaan shuhadada dadka lagu sheegay. intii geysatay xasuuqaasna ilaahay baa sheegay man qatala nafsan bigayri nafsin man qatala mu'minan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. صدق الله العظيم. انت كدب arrinta dhacday waa masiibo qaran. way nagu dhacday wixii naga dhinta noo soo noqon maayaan, hantidii naga burburtana noo soo noqon mayso. waxa hanti burburay, waxa naf go'day iyo waxa hanti burburay iyo inta maskaxiyan uu dhaameysku u soo gaaraba wax la qiyaasi kara maaha. runtii aad baan uga tiiraanyoonaynaa, aad baan uga tacsiyeynaynaa, madaxda qaranka baan u tacsiyeynaynaa, intii ahalkoodu halkaa ku dhimata baan u tacsiyeynaynaa iyo saaxiibadood. guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ayaan u tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay waxa muhiimkaahi wixii hadda ka dambeeya waxaa weeyaan sida aan ula dhaqanno. ummad aan qadiyad lahayn ma dagaalanto. tani waxay noqon kartaa qadiyaddii lagu dagaalamayay. in gumaad laga dhiidhiyo, in go'doon laga dhiidhiyo, in la go'o oo nala gumaado in laga dhiidhiyo waa qadiyad noqon karta in lagu dagaalamo. soomaalidu mar kastoo ay dagaalamaysa waxay ku dagaalami jireen qadiyado. axmed gurey ka soo bilow wuxuu ku dagaalami jiray difaaca diinta iyo dhulka marka uu ka talinayay. sayid maxamed cabdulle wuxuu ku dagaalamayay waddaniyad iyo xorayntii dalka. dagaaladii kale aan galna waxaan ku dagaalamaynaa dagaalo waddani ah. cadowgii maanta gudaheennuu ka dhashtay. ilmaheenni baa ayagoo qarxaya naloo soo dirayaa. naxariis la'aan aan adduunka ka dhicin weeyaan waxaanoo kale. aayadana arrinta dhacday daraad 14 oktoobar inaan qadiyad ka dhiganno aad bay muhiim u tahay oo ummadda lagu dagaalgeliyo. hoggaanka saree dalka waxaan leenahay fursad baa la haystaa maanta dagaalka kan loogu bedelo dagaal shacbigu uu ka qayb qaato. shacbigu maaha in la yidhaahdo keliya magaalada gudaheeda ka soo bixibixiya ee meelaha ay joogaan in loogu tago oo shacabka la hor kaco ayay fursad u tahay. waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa hoggaanka saree dalka inuu ka faa'iidaysto arrintaa. qof kastoo soomaaliyeed oo muslima maanta waa diyaar. qodobka kale waxaan leenahay soomaaliyey wax kale waa lagu kala aragti duunaa karaa, siyaasadda waa lagu kala aragti duunaa karaa, laakiin in cadowga kan layska xureeyo na gumaadaya laguma kala aragti duunaa karo. male cudurdaar ma laha. in cadowgan layska xureeyo laguma kala aragti duunaa karo. yaan la siyaasadaynin, yaan la shakhsiyadaynin, yaan cid gaara lagu eedin. sax waaye mas-uuliyadda cid baa noo haysa, ha la kaabo. in gaari xamuul ah dad shacaba in lagu dhex qarxiyo waxay ka turjumaysaa in dagaalka keliya uusan ku socon dawladda balse uu ku socdo shacabka. dagaalkani dawlad kuma socdo, anaga waa ogeyn. tilmaamooyin badanna hore waa uga bixinay.
exaambulis badan amba tilmaamo badanna way jiraan nimankaani ujeeddadoodu waxaa weeyaan shacabka in la xanuunjiyo si shacabku dawladda ugu kaco shacabkii oo la baabi'iyey dawladdoodii uu dumiyey haddana marka laba khasaare meesha ka dhacdo markii shacabkii ay xanuunjiyaan oo dawladdii ay ku kacaan ayagii isku mashquulaan dawladdii lagu kaco kadibna ayagu ay la wareegaan meesha oo waddanka ay la wareegaan marka shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan arrintaa waa inay ka dhiidhiyaan waa inaysan ku hadlayn askariga meesha joogo waddada joogaahi horaan u soo xukumi jiray keligii kama hortegi kara arrinkaa waa inuu shacabku haystaa shacabku inuu soo baxo askariga indho u noqdo weeye askariga kale ka dagaalamaya baadiyaha in shacabku biyaha ka daba qaado waaye culummada soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxay joogtaa meeshii ugu muhiimsaneed oo la idinku dareemi lahaa inaad gudanaysaan kaalintiinna culummada soomaaliyeed waxaan leenahay dagaal diineed waaye dagaalka lagu jiro dagaalkan kale waxaa looga adkaa karaa in dagaal diineed lagu qaado dadkii dagaalka diin u beddeli lahaa oo askarta iyo dadka dagaalamaya la hadli lahaa inay shuhaddo yihiin hadday dagaalamayaan dadkii u sheegi lahaa adinka waaye hoteellada ka soo baxa masaajidda khudbadaha laga akhrinayo ummadda ha looga sheego waxa jira ciidamada xarumaha ay ka dagaalamayaan iyo dhufiisyada ay ku jiraan ha loogu tago halkaa ha laga wacyigeliyo waxa qadiyadda ay ku dagaalamayaan ha loo sheego shacabka ha lala hadlo waxaan kaloon la hadlayaa dadka aqoon-yahanka ee wax qora haddaadan arrimahan waxba aadan ka qorina waxaad qori lahaadeen ma garanayo wax ka qora dadka telefishinada ka hadla ee ayagana dadka hadla ee barnaamijyada ka dooda haddaadan arrimahan ka hadlina oodan ummadda u sheegina oodan wacyigelina ma aqaan waxaad ka hadli lahaadeen idaacadaha gaarka loo leeyahay iyo idaacadaha dawladeedba arrimahan isku mid ha ka noqdaan nin mucaarada iyo nin muxaafida arrimahan isku mid ha ka noqdaan nimanka kani waxay u baahan yihiin in layska xureeyo intay meel ka mida dhulka soomaalida haystaan sidaan waa nugu soconaysaa inay afgooya agtiisa noo joogaan iyo toorotoro ee halkaa laga soo rara gawaarida maanta tanaa dhacday berri mid la mid ahaa dhacaysa midda kale mid la mid ahaa dhacaysa ilaa ummaddii ay niyad jabto dadkii qurbaha ka soo noqonaya ay niyad jabaan ummaddii waddanka maalgelinaysa ay niyad jabto la kala shakiyo dadkii kala shakiyaan la kala cararo meeshay u socdaanna waa halkaa inaan isku duubannahay shacab iyo dawlad aan tusinno inaan arrintooda dagaalkooda la siyaasadaynayn oo hal miqaanad looga soo wada jeeda aan tusinno in layska dhicinayo aan tusinno madaxdana waxaan leennahay markaanoo kale shacabka dagaal ha lagu hoggaamiyo qadiyadaha kaleoo jira ha la xidho aan u soo jeesanno waxyaabaha kalee faadfaadka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ku celinayaa ummadda soomaaliyeed waa meeshii ay ku midoobi laheyd maanta dhallinyaro soomaaliyeed baan arkay oo mutadawiciin oo shaqaynaya oo siday u shaqaynayaan runtii in soomaaliya marxalad cusub gashay ay ku barayso aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waxa uu ahaa kaasi taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan tuuryare oo muujinaya dareenkiisa iyo aragtidiisa qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska zoobe waxaana uu soo jeediyey in ay tahay in loo midoobo sidii laysaga dulqaadi lahaa dhibaatada maleeshiyada al-shabaab